dowladda Mareykanka ayaa la filayaa inay wafdi sare u soo dirto caasimadda Somaliland ee Hargeysa kuwaasi oo madaxweyne Biixi ku dhiirigelin doona in meesha laga saaro caqabadaha hortoogan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka sida ay wargeyska Geeska Afrika u xaqiijiyeen in la xogagaalay wafdiga uu hogaaminayo safiirka Mareykanka ee Soomaalida Danjiran Donald Yamamoto ayaa la filayaa inuu socdaal ku yimaado caasimadda Somaliland ee Hargeysa waxaana la sheegay in safiirka iyo wafdigiisu ay madaxweyne Biixi kala hadli doonaan in la hirgeliyo labadii qodob ee ugu muhiimsanaa qodobadii ay soo saareen ergadii dhexdhexaadinta ee kala ahaa in la kala diro guddida doorashooyinka ee waqtigani jira iyo sidoo kale in la soo celiyo guddidii hore ee doorashooyinka wafdigan ayaa waxay sidoo kale madaxweyne Biixi kala hadli doonaan in doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka la qabto bartamaha sanadka 2020 sida ay ku taliyeen wafdigii beesha caalamka ee dhawaan Hargeysa yimid oo aanay dowladda Mareykanku waqtigaasi la socon. Danjire Yamamoto ayaa waxa kale oo la filayaa inuu kulan la yeelan doono madaxda asxaabta mucaaradka safiirka Mareykanka ayaa waxa uu fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya waxaanu socdaalkiisii ugu dambeeyay Somaliland ku yimi sanadkan si dhamaanaya haatan 2019.